بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم. halkan waxa weeye dawladda hoose waxaan ka hadlaynaa barnaamijkii shalayto ka hadlay maayarku ee ahaa cashuuraha iyo qaabkaytay iyo godoonka ugu jirto degmadan Burco. xeerkan la yiraahdo xeer 12 waxa la sameeyay waqtigiina cigaal xeerkaas oo ahaa markaa dalku 7 degmo Saylac Boorame Hargeysa iyo Gabiley Sheekh Berbera iyo balgoole 7 degmo intii ay qaadanayeen ayuunba iminkana la siiyaa wax alla dhowr iyo 40 degmo ee ka dhisan dalka waxa ka dambeeyay oo la dhisay xeer 23 xeer 12 waa la nasakhay waa xeerkii mideynta cashuuraha kii la nasakhay ee xeer 23 la sameeyay laguma dhaqmo lamana sameeyo laguma shaqeeyo waxa lagu sameeyaa maayarka doorashadiisa iyo taasoo kaliya rididiisa iyo cashuuraha cashuurii dawladaha hoose qaadi jireen badna waxa qaatay xeer 12 badna waxa qaatay baarlamaanka oo marsaday wasaaradda maaliyadda oo marsaday baarlamaanka oo ka ansaxsaday saadaradeed qofkii la doortay ee leeyahay wax qabtay wax ku qabtay mid ma jirto wasaaradda waxbarashada asaasiga ah ee qaatay lacagteedii caafimaadku waa la mid wasiirka caafimaadka biyaha maxaan raahdaa ciyaaraha wax allaaliyo wixii maandheed u ahaa xeer 20 ku qoray dawladaha hoose mid walba wasaaradii lahayd baa qaadata ee hoos imanaya dawladda hoosena waxa la yiraahdaa khasab ku bixiya ilaa booliska saldhiga lama geeyo maxbuus ilaa dawladda hoose bixiso wax allaaliyo wax qabadka ee haday isbitaal tahay haday boolis tahay haday waashmaanayo iskuulada asaasiga tahay haday isbitaalka tahay haday jaacada tahay gudigood waxay hoos yimaadaan oo la weydiiyaa subaxa galkooda dawladda hoose marka dawladda hoose wixii ay wax ku qaban lahayd waxa goostay wasaaradda maaliyadda qaato xeer 20 xeer 12 oo mideynta cashuuraha waa qaatay waxa la yaab leh iminka balligooda meesha la yiraahdo kasan baa ku yaala waxaad moodaynay kala dawladti waxa lagu soo cashuuro dib baa loo qadaadro waxa la yiraahdaa miskiilo waa kugu dheer ruux kiilo kugu dheer waxa la geeyaa abaarso lama ogola in lagu cashuuro balligoodle lama ogola in Burco lagu cashuuro lama ogola in Salax lagu cashuuro waxa quruxda dalka wax lagu cashuuro waxa weeye kala baydh iyo Berbera iyo Hargeysana airport-dii dalka loo xiro kaligeed baa qaadata airport-ka Hargeysa dikad wax ka soo galaana waxa weeye baashaas qura la saanood baa jiri jirtay oo la bixi ka yimaada Puntland yana dagaalka xiray marka dalku wuxuu noqday 3 degmo oo midna airport ka tahay midna waxa kala bayr tahay midna ay tahay bahash dikada Berbera intii airport-ka xoolaha la iibsan lahaa Burcana ee la qaadan lahaana airport-kana waxa qaadata ariga Burco laga iibiyo Berbera warti waana dhab arrinkan 10 jeer baa intii ka horeysay anigu aan dacwadeeda geeyay ilaa cabdooyo barasaabo baan israacnay wana algo hoos qaado ay taa maanta qaado barasaabo waana dhibaato taagan oo dhab ah saadaradeed war dalku ama ha laga wada qaado cashuurta ama dawladdu waxba ha wada qaado ha u qaybisa degmooyinka si siman waayo imaga balligooda ka samba cashuur qaada jooga maalin bajoonka qaaday maadaama tayar shidaale timaada dhibaatada ka taagan waa loogi marka hadii cashuurtu ay isku mid tahay maxaa loo diiday kastamka balligoodle loona ogolaanaya kala baydh waxa weeyaan naas nuujin marka hore Samson baa ku dagaalami jirtay iminkana Muuse baa ku dagaalamaya oo wasiirka maaliyaddu iska dhisaya waayo wasiir waliba deeniga joogun buu istaad raaciya saadaraada waxaan leenahay war cashuurahana dalka loo sinaado hadii kana doorashada wax la iska daayo mar hadii waxbarashadii asaasiga ah ciyaarihii maxaan idhaahdaa fankii suugaantii hadii ay tahay biyo hadii ay timid walba ay qaadanayso wasaaradii lahayd dawladda hoosena dadku garanayaan waxaas waxa taagan aanu doonaynaa in wax laga qabto dawladda hoose waashbankii kii ilaalinayay kii xaadayay dugsiyada hoose gudiga dawladda hoose oo taagay saldhigii waa la mid maxaan idhaahdaa waxbarashada asaasiga ah waa la mid caafimaadka asaasiga ah waa la mid wix allaaliyo wixba dawladda hoose taagay saadaradeed waxaan leenahay maayarku run buu sheegay waanu hagaagsay waana ma jirta hortiina waanu geynay aniga cabdooyo barasaaba baa geynay in riyalaanu geynay siilaanyaanu geynay waa madaxweynaha saddexaad golayaasha deegaanka ama hal la baabiyo ama wixii sharcigu siinayay dawladda ha waa kalato